بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دوادا برنامج كي أهارونتا إيشيك أو رونتا شيك أتكدا ونسان تي فيجا عالمية KGS استوديو مجال حمر عن كلنا هاي. ما أنت برنامج كا رونتا إيشيك أو رونتا شيك وحمرتي إيوه شيخينا أما صاحب كي يعني رهدي شيخ أويس محمد عمر. مركو جوريس واحد ربع إنهم كسر دوايا ميكروفون كأما تي فيجا استوديو عن كلنا هاي حمر. كسر دو شيخ أويس استوديو KGS مجال حمر. هذا ما سنتهاي وأنا كأجمع علينا مرتقات كان شرفت له. هذا ما سنتهاي. شيخينا برنامج كين وحلا يرادا رنتا إيشك أو رنتا شيك. وحنقول لقلنا ماركتي وعي قلنتا بالشدة إيوه لأن يرادا ماركتي أو لما حبابيي أما الدور كالجليي دين أنتي لو شيء. برنامج كينا أرماس أيود دبقلا أرماس أيود فلنقية. وحكود ذا لبرنامج كينا أدير الدسارة dadkaas dhalinyartaas la dhumiyay ama la duufsaday sidii loo soo celin lahaa intii ilaahay ugu tala galay in la soo celiyo marka maanta adigana waxaad ka mid tahay culimada Soomaaliyeed dhalinyarta Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay marka maadaama maanta adiga cilmi ilaahay ku siiyay aqoon aad u leedahay dhalinyarta maaragtay oo maaragtay diintan wax aad ka baratay marka waxaan jeclahay maanta cilmigaaga in laga faa'iideysto codkaaga meeshuu gaari kara in la gaarsiiyo message-kaaga meeshuu gaari kara in la gaarsiiyo dhalinyaro badan ayaa jirto oo Soomaaliyeed oo maanta dalku wax ku tari lahaa dadku wax u tari lahaa diintu wax u tari lahaa oo bilaa micno ay ku dhinteen oo bilaa micno isku qarxiyeen qaarkood laga yaabo inay ay dileen waalidkoodii qaarkood laga yaabo inay qarxiyeen qarabadoodii qaarkood laga yaabo inay qarxiyeen eheladoodii iyo cashiiradoodii marka arimahaas ayaa barnaamijkeena aan ku falanqaynaa marka saas darteedii ayaan kugu cazumnay marka waxaan rabaa marka ugu horeysa sideed u aragtaa dadkan maaragtay maanta oo bilaa micno lagu dilo oo la laayo oo target laga dhigtay adiga ka sheekh Aways ahaan sidaad u aragtaa sheekhay بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مركو هore magaca TV-ga horta aad iqanciyo runta ii sheeg amba runta sheeg إلهي قرآنكيس كله في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين dadka xaq rumeeyo alla ka baqa ahadana ku runta sheeg حديث النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ahay ittaqillaha haythu ma kunt walaalayaal horta dhalinyaradan la marin habaabiyo horta diin loo ma sheegin ana saamisanahay sababtu diintu foodo ma ogola diintu dadka in la dhibaateeyo ma ogola diintu qof in xaq dar lagu dilo ma ogola diintu ma ogola in aad qof dhibtid macnaha dil iska dhaaf waxa lagu diiday inaad dulmisid waxa laga manciyay in hadal xun qof ku tiraahdo waxa lagu dhaalo ku amro waqulu lin-naasi husna hadalka wanaagsan waa cibaado waqulu lahum qawlan ma'ruufa دينتي إسلام كوا دين دميسترن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وكلية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينتي إسلام كا ما أقوله قف إن حقدر لودله في سورة النساء إلى القرآن كسر كله ومن يقتل مؤمنا متعمدا أيضا بالفرصة ولا ليال ومهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا معيتها بالمرديسو فجزاؤه جهنم خالدا مركز دليل سقف الله هذا جنة كل سنة كنتي وحلاها برامج كان وقتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو بالله وقت الصبي بالله دتك علي إن الدليل كر استجدا ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله علي وحنكو دلينا
kitaabka alle inaan kor u qaadno kitaabka alle inaan kor aan yeelno waxaan kuu dilaynaa raalli ahaansho alle waxaan la yaabno ilaaha ugu dhawaanaynaa dhiigaada yaa la dilaa cali bin abi طالب من 10 المبشرين كميدا أوقتين إنه هاي معناها إيش شيخ خلفاء الراشدين كميدا معناها وحقنا علي هيرك وجارسيسنا عبادة تقني ماذا إن هو جامينتا النبي صلى الله عليه وسلم كل أرتواه أتكو كل واحد و معناها أسد الله واحد معناها مرك ولا رجال وحياة إن فتنة صعوته فتنة رنتي إلى القرآن كيسو إنه الشيء يقول واتقوا فتنة نعم واتقوا فتنة ورفتنة ذا كعب صدا ما حد عيسو هدا كعب سويسين لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والله هدا رالي كنا قتيد نين إن هرتاد اللي قد دلي بالرئة ذو اللي قد دلها لا ميت أما قرحة كل تجايو أم بوا اللي قد دلها والله ليه الهبين ورا قرحة وحكنا عي مكة المكرمة سأقولنا يوحد ما تيدد بدن أو دلني رأو بدن مركز الشيخ أنا جو تاس أنا أوجد بين وأصوص عنا barnaamijkaas waa barnaamijyada noogu muhiimsan uu ku jiriya marka waxaan wadnay marka dhalinyarta marka la maran habaabiyay diiniyan marka diinta waxay ka qabto in oo maaragtay dad islaam la dilo oo maaragtay target laga dhigto oo sidaadii hadda aad sheegtayba Ali ibn Abi Talib dadkii dilay waxay aaminsanaayeen in oo maaragtay ayaga muslimiin ay yihiin alina uu gaal u yahay ay aaminsanaayeen haddana waxay yiraahdeen markay dileen intay dul istaageen aayad quraan ay ku dul akhriyeen waxaan ku dilnay raala ahaashi ilaahay dhawaashi ilaahay aan ugu dhawaanayno caliyow kitaabkan kor yeelayno darteeda ayaan ku dilnay marka nimankan marka aygana adiga hadalkaaga waxa ku jiray diinta islaamka ma qabto in maaragtay qof la dilo diinta islaamka in la dhibo diinta islaamka in la dulmiyo ma ogola marka dadkaas oo saas sameeynaayo ka sheekh Aways ahaan adiga marka sidee aragtidaada maxay tahay dadkaas ku aadan aragtida waa kala qaadaha aye horta dhalinyaradan in badan markaad aragtid argagaxa ku jiro aye in badan dadka ku jiray aan aragnay ka soo baxay marka yar la sheekaysatid ma jira qof aad la sheekaysatay ay ka soo baxay aad iyo aad kulli xabsiyada waa tagtaa adiga soo ma aad iyo aad waa booqdaa wacyigelin barnaamij wacyigelin sameeyaa waa tagtaa dhaqan celinta waa tagaa waxyaabaha la yaab kale waxa arko waxay tahay nin dhalinyaro waxa ku dhahay shalay waxaad aaminsanayd in qof walba uu gaal yahay hadda maxaa aaminsantahay wuxuu waxaas khalad yahay shalay waxaana sidii khalad ku ahayn ii cadday arrimo la yaab loo sheegay wuxuu yiri waa la ii sheegay dadkan waxaan ku dhahay cilmi oo qofka inuu gaal yahay inuu gaal yahay aa ku qiyaasi karto ma taqaanaa markaasuu wuxuu yiri maya waxaan ku dhahay quraanka ilaa intee ka kasaysaa wuxuu yiri jiscaan ma kasay jiscaan ma waay ma kasay waaye kitaabka xadiidka laga soo qaato xadiidka lagu sheegay oo lagu akhriyay sanadkiisa ma taqaanaa xasan miya muttafaq miya muxuu yahay horta xadiidkan yaa wariyay ma lagu fahamsiiyay kitaab noocee lagu akhriyaa wax loo akhriyo ma jiree xadiid iyo aayada loo sheegaa soo jeesana la dhahaa waxaan ku dhahay marka nafsadaada inaa haligtid macnaha inaa haligtid nafsadaada maxay keeni kartaa waatu ilaahay quraankiisa ku leeyahay wala tulqu bi aydikum ila tahluka wargacmiina ha isku halaajina aayada quraanka fi suurati an-nisa wala wala taqtulu anfusakum in allaha kaana bikum rahima dhalinyarada marka la sheekaysatid waxay garwaaqsadeen ogaadeen waxa inay qaladin shalay ku jireen waxaan ku dhahay yaa ayyuhalladina aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha waxaan ku dhahay ilaahay u toobakeen ilaahay u toobakeen qaladka aan gashane mar labaad u laaban halka arin oo kale aan dhalinyarada aan ku arko waxay tahay dadkan qofku markuu aqoon lahayn waxay ahayd aljahlu wa cadamu alfiqh qofku markuu jaahil ka yahay fiqhiga islaamka oona garanaynin mas'alatul jihaad waduma nin hal sheekh markuu sameesto qofku oo sheekh kala dhageysan sheekhaas wuxuu u sheegay kaliya ayaa wuxuu u maleeyaa inay sax tahay haddii adii wax kale ku arko wuxuu ku leeyahay waxaan waa qaldiin nin hebel sheekhu ma taageersan tahay horta ma taageersan tahay diinta ma taageersan tahay ku dhimaanay sheekha horta sheekh ma yahay in la isweydiiyo sheekhan diinta aqoon mu leeyahay in la isweydiiyo sheekhan saaki dhalinyaradan oo mar habaabiya asiga naftigiisa asiga sheekha sheeganayo soo jihaad ma wuxuu sheegay inuu soo baxo moobambeesku soo xiro inuu soo baxo dagaalka ma furanti galo inuu soo baxo mudad dilo wa asiga iska raaxaysanay adig kaliya maxaa kordhiga dadka 19 sano jirta aqoonta aan leedahay oo dadka ani waxaan ogaaday dhalinyarada in ayna diin aqoon u lahayn ajiib صح وفاهمي سوما marka qofku waxa keeni karo waxba kama baran
labaatan iyo saddex suurad ee farmaduuxa ilaa suuratu naas tafsiirkooda ma garanaya qofka markuu tafsiirka quraanka macaanul quraan garanayo xaqullaahina wuu garan karaa xaqu naasina wuu garan karaa war iska dhaaf gaalada dili karin marka dhalinyarada marka la hadashid oo wacyi gelisid oo waaqic fahamsiisid wuu qaadanaya wuxuu leeyahay war waa garwaaqsadee waana qaldamee ilaahay nacfiyo waa fahant soo ma marka muhiimadda waxay tahay oo loo baahan yahay dhalinyaradu in lala fadhiisto ana waxaan qabaa dhalinyaradan in lala sheekaysto dhalinyaradan in la dhaxgalo dhalinyaradan macnaha ayaga dhan waa xiran yihiin macnaha haddii gurigan quful ku xiratid wuxuu u baahnaana furihii haddii la qaato in la jibiyo u baahnaana dhalinyaradan inaan jibinaa u baahnaa maskaxdooda inaan ayaga galna maskaxdooda furooda waa la haystaa haddii furaaga la qaato khalaasaa tahay waxaa arkaysaa marka dadka daroogada isticmaalo shay waxaa jira cajiib agtooda dadka bini'aadanka ah markay ku arkaan qofka daroogada dawaayo wax walbo oo ku qasabto wax walbo oo awoodo sameynaa marka dhalinyaradan waxaa leeyahay tan caafimaad maahan dhalinyarada waxay u baahan yihiin daaweyn dhammaystiran u baahan yihiin oo diineed aad baad u mahadsan tahay sheekhayna sheekh Aways Maxamed Cumar sheekh Aways waa kaaga mahadcelinaa ajiibitaankii aad na ajiibtay maaragtay in barnaamijkan adigana aad maaragtay aan kugu martaqaanay aad naga ogolaatid aad baan kaaga mahadcelinayaa sheekhayga saa adiga aad sheegtay maaragtay dhalinyarada waxay u baahan yihiin in maadaama la qufulkooda in la jibiyay u baahan yihiin waxaad sheegtay dhalinyarada inay u baahan yihiin in la wacyigeliyo oo diin loo sheego dhalinyaradu waxay u baahan yihiin in la dhaqo maskaxdoodii memorigoodii in maaragtay la deliid gareeyo wixii ku jiray laga saaro wax cusub lagu shubo marka mar badanna maaragtay waa ka sheekaysanay ani adiga arrimahaas si khaas ah ugu sheekaysanay waxaad ka mid tahay dadka marka xabsiyada tago oo maaragtay dhalinyaradaas la sheekaysto marka mis leedahay haddii arrimahaas la xoojiyo oo diin loo adeegsado oo maaragtay khibrad loo adeegsado dadka ayagoo hadlayaan oo la soo bandhigo oo cunuga asigoo ka sheekaynaya waxyaalihii loo diray iyo dhibkii asiga uu geystay asigoo ka sheekaynaya oo la soo saaro wax badan ay bedelaysaa mas leedahay oo dadkii duulka ku jiray ay naftarkooda ay daawanayaan dhalinyaradan waxay u baahan yihiin sheekh Ilyas daawo dhammaystiran waxaa loo daaweyn karaa kow horta dhalinyarada in la fahamsiyo in la tooba keeni karo ninkan saaka waa dilaya ama dhibkan sameynayo inuu tooba keeni karo waa aaminsan yahay waxaan dhilahay xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam lillahi ashaddu farhan bitawbati abdi Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu aad ugu farxayaa adoonkiisa oo toobad keeno quraankan in badan buu ka hadlay macnaha dhalinyarada in wacyigelinta joogta ee ahaato dawladdu ay u fidiso cafin aad u weyn oo cafin qaran ah dhalinyaradan waxay ka baaba'ayaan waa dalka dhalinyaro ma harin dhalinyaradu qaarkood ku xabsi ku jira markaa la sheekaysatid oo aad la fadhiisatid way garwaaqsanayaan hadda adin maanta tagta xabsiga wareysatay ragga dhalinyarada ku xiran meesha markaa wareysatid way garwaaqsadeen waxay leeyihiin shalay waa qaldaneen waxaan sameynayna khalad ay ahaayeen arrintaana ma ogeen qofkaas saas dhahayo meeqa qof oo bedeli kara waxaan rabnaa dadka meesha ku jiro message-ka aan ii sheegayaan in idaacad ahaan loo gudbiyo idaacad ahaan loo gudbiyo media naftigooda ay ka hadlaan war aniga shalay waxaana sameeyey la wareysto war adiga markaa shalay saan sameynaysa diinta aqoon muleed qofka markuu jaahil yahay wax looma qabto qofka markuu jaahil yahay wax looma qabto laakiin qofka markuu ogaal wax ku sameeyo Allah wuu u qabanaya la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum muhiimadda marka waxay tahay ani dawladda waxaan rabaa in ay sameyso wacyigelin aad u dhammaystiran dhalinyaradan waxay ka baaba'ayaan waa dalka waa dhalinyaradii maanta dalka wax weyn ka bedel leh waa dhalinyaradii future-ka lahayn nin walbo la soo qabtay tiirka la geeyo la dilo wax qaarna qarax lagu ku dhamaadaan qaarna dil caadi ay ku dhamaadaan waxba harimaaya adduunka dhalinyaro dhisto diinta waxaa dhisa dhalinyaro dal wax walba waxaa dhisa dhalinyaro dawladnimo waxaa dhista dhalinyaro wax baaba'aya maanta sheekh al-Fadil waa dhalinyaro maxaa xal sidaa ma ku jiraynaa mas xal kala lahaay xal kala waxay tahay diintu daawo waaye ilaahay quraanka soo nagu leeyahay wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah ayat quraanka waxay idoo kale في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
هي في الصدور مهمة حياتها وحياتها وهدى ورحمة للمؤمنين برواقة الدين تأيلا هذا هو دين واسع ودين الرحمة ودين المغفرة ودين التوبة ودين بول بأعقش الله سبحانه وتعالى حداد قعمة وغرستين الله وكعفنا يا عبادي إنكم تخضعون بالليل والنهار صح وأنا أغفر الذنوب جميعا وأنا أغفر الذنوب جميعا عجيب الله إلهي أكبر ساسولي حديث رسول أدود ما سنتهي شيخنا شيخ عويس محمد عمر فضيلة الشيخ ماركتي wax badan ayaan ka soo hadalnay oo sidii dhalinyartan lagu wacyigelin lahaa sidii wax loogu bedeli lahaa kaalintii laga qaadan lahaa marka waxaan u gudbaynaa marka xamar bariyahan waxa ka dhacay maaragtay khamiistii waxa ka dhacay ama jumcadii inay khamiistii inay aan jeclahay khamiistii waxa ka dhacay qarax aad u weyn oo maaragtay ilaa wadadan Makka al-Mukarrama hotelkii Makka al-Mukarrama iyo Hilaac iyo hoteelo badan ayaa maaragtay meesha ku burburay dad badan xantidooda ku waayay dad badan ku dhamaaday dad badan lagu laayay qaraxidaas marka waxaan filayaa dad baa ka dambeeyay dadkii ka dambeeyna waa taqaana anigana waa aqaana ummadana way yaqaanaan marka maxay u daliilsanayaan maxayna tahay diiniyan diinta islaamku maxay ka qabtaa dad masaakiin ah oo shacab ah iska socdo oo maaragtay liska laayo qof bajaajis iska saaran qof dukaankiis ka adeeganayo qof maaragtay business iskaga dhex jiro qof maaragtay adduunyada iska sameysanayo maaragtay holiis iskaga jiro oo qof caruurtiis u soo doontay inuu maaragtay wax u gado qaarkooda caruurtooda inay u shaqeystaan ay u soo baxeen in maaragtay la laayo bigayri sababna lagu laayo bila dhanbana lagu laayo diinta islaamkana maxay ka qabtaa maxaadna dhihi lahayd shacabkana maxaad ugu baaqi lahayd sheekh إن لله وإنا إليه راجعون. نعم. أنت دمت الله نحرسته. أنت دمت الله نحرسته. أنت دعوتنا الله عافية. والله يا ورت أرين أدو حنون بدن واي. أنا وحب قلب سن. أن الله لا تكسر قار صلي دقاين لو قلت كربي صلاة عشاء. عجيب. قار اسكور دينا مال اسكفدي. رق بدنو فاميلات كذا كصوت تجين أو أذيك وقاضي الربين. رق بدنو نير الساحب اللي اسكجين مدين وحب قلب سن. والحاقي. وديقود اللي ليه ما أنت جنة كرة سرينا كنتي وعرين عاد عجيب وفدنا وين عاد القرآن كداية عند اللسان وحيد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة عجيب واعلموا أن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى وعدي يوانين وحول بقرآن كشوكسوكم أنا موحى أسوي ديا مرلبو dadkan sidan sameynayaan jirna xamalamiya dadka sidan sameynayaan bini aadan ma ahniya dadka sidan sameynay muslim maxaa lagu yaqaanaa xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam al-muslim man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi war waxaa la diiday carabka in la ilaaliyo carabka in aad qof ku dhibaataysa la diiday alla xaraanta gacanta iska dhaaf dilba ku sii jira hal qof oo wallahi dhiigiisa la daadiyo alla xaqiisa waxay ka tahay wax adduunka oo baaboo iyo hal qof oo la dilo adduunka oo baaboo oo la fudiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaas ka jecel yahay kacbada oo la baabi'iyo iyo qof la dilo كور هل قفوة لبما كجعل الله سبحانه وتعالى ولا ليال أنا وحن فهم الله وأنا أسوي الديا وأنا يقوم الصوت عيس أنا بحساك أنا أقول أنقب قف إسكديله أنا بابور وحليا بنا قف بقرح كسر شو باورك قف سوى ذي قف برالك وأجي أنت اللي وضع ضد بالا صولينه رالي وكيا كان سميي من كوافذ ذي كان سميي كان راليك كل تلفونه كوجا وحليه حق مرة حق بح حق بح ماشي ذاتك بدن الجوجان قال ورماشي قال مجوي دت سود كذي الصوماليا شيخو شكله مدو لبا أرنو دوين صح لبا أرنو دو حيتها نعمة إلهي مركي لو كفريو إلهي وحب الله قاضي فأذاق الله لباس الجوع والخوف نعم صوماليا إلهي سبحانه وتعالى إن اسكو صبحان لما أنتود هل ما لو طبكينا إن اسكو صبحان إلهي هو يدي سنة ودم الأفضل ديجا هدو قبط بلسدة إرساقدنا وكزوشا أمننا وكزولا محايا لي دتكو عرادنا وإرساقد كل إرساقد وحكورس أمني رب اجعل هذا البلد آمنا
نبي إبراهيم عليه السلام مونا ويديسا الله سبحانه وتعالى رزقت عجيب وارزق أهله من الثمرات كبعد بيتي أمني مركا عيش الصلاة صباح هذه كرتها أمني مركا عيش واحد أقطع ما أنت مركات دنت هذا سوف جت إن جروجا إيمان حاسك الماجا إن أبائنا كول ولين مركا بعد ما صلى الله عليه وسلم مركا بعده إمي صهيا ساك أينيش إمي سحاسة ساي قادين مقولتها إن دين جعلنا يعني نبى فيسبوك وحق صقري أنقرنا دين تذكر لقوا بابينا سو إسلام كما هو بيدك بحر هي وحقول له دين تكبحني ولا له دين تذكر لقوا بابين لقوا من الدليل نقدر يرى أسكت هاي بلا حقول فهم سيو والله وحبا أشرح قربه وجوين كاس والله الله ولا حرير وحبا أشرح وراح أري دين تم أقرأ هذه القرآن كأدري تفسير كأدري ولا يسوع بلورت يسوع دينتو ولا فدني دينتو ده وحما فدنيش صح دينتو إلهي وحما في الناس والله فدنيها هذه وحربها dadka waxaan sameeyay inay hal aayad keenaan la dhahayo qof muslim wala dili kara صح in ay keenaan hal xadiis ay dhahayaan waqti nabiga sallallahu alayhi wasallam annabiga iyo asxaabti aqrax sameeyeen dad laayeen nabiga asxaabti qof nabiga waxa loo sheegay munaafiqiin Abdullah ibn Salul wali ibn Muqra joogeen waxa lagu dhahay nabi Allah hebel waa munaafiq miyuu dili صح su'aal shucayta miyuu dili والذين عن المنافقين وهب المنافقين سيكون هذه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا وحو الله سبحانه وتعالى كليه هذا عالم الغيب نذكرت نعم مين بدرك حيته دغال waxaa jira diimeed oo dhalinyaradii lagu baabi'ay نعم dhalinyaro laba arrin marka dagaalkaas diimad jirana diintii saxnayd maaha maana dadka waa la qaldooya dhalinyartii la qaldooya oo maaragtay diintayna ilaa ma dhigayso in oo qof muslim ah oo maaragtay iska socdo oo gurigiisa ka soo baxay in la iska dilo hatta iska badhaafay qof muslim ah qof gaal ah oo amaan ku jiro oo muslimiinta ku dhaxnool in la dilaa diinta islaamka ma qabto wana haysan tahay arinta alla yaabay waxay tahay dhalinyaro oo baxeen oo meesha mareen oo qaran dhaawacmeen qaran dhinteen qaar ka dhaawacaan la sheekaystay runtii nin kamid ah waa adeeganay waxaaskiisa oo adeegay ilmihiisa adigoo raalli ah sheekadan waa noo bilaawi doontaa xalqadana inta aan ku joojinayna sheekhay aad baad u maasan tahay xalqadan maxaa ku gabagabaynaysaa laba arrin dhalinyaro ilaahay ka cabsada waa xanuunsantihiin daawada diinta ku jirtaa diinta saxda qaata aad baad u maasan tahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa sheekh Aways Maxamed Cumar ayuu ahaa sheekhayna sheekh Aways marka xalqadan intaan ayaan ku joojinaynaa xalqa labaad ayaan maaragtay duubi doona hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaali noqdo oo waqtigan uu noo saamaxo sheekhayna aad u maasan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waa kaaga mahad celinaynaa ogolaashadii aad noo ogolaatay inaad nagu soo booqato xafiiskayna ama xaruntayna aad baad u maasan tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh Aways walaaliyaal waxaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ummadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa la dulminin dulmiga la iska ilaaliyo dhiigga muslimka ma banaan ayuu leeyahay sheekhana anigana in badan ay idinku celceliyay barnaamijka aad la socotaan waxa weeye barnaamijkii runta ii sheeg oo runta sheeg sidiisa runta ayuu sheegaa shabaabna runtan u sheegna shacabkana runta loo sheegaa shacabku waxa runta ugu sheegaynaa haddii shabaab adiga aad qarisid ama haddaadan maaragtay aadan sheegin ama haddaa maaragtay soo dhaweysatid dhibaatadan way yaraanaysaa laakiin haddaad soo dhaweysatid haddaad u xiilisid haddaad garab siisid haddii aad tiraahdo asigoo shabaab uu ka soo baxay qaraabadaydu waaye ninka waa fiicnaaday oo ummadana saas uu ku halaago dembigeeda waa ku jirta adin dembiga leedahay marka shacabkana saas ayaan u dardaarmaynaa barnaamijkii waa runta ii sheeg oo runta sheeg oo idinla socodsiin anigoo ah Ilyas Ali Nuur Ali waxaad ka daawanaysaan KGS TV ayaad ka daawanaysaan magaalada Xamar xarunta aan ku leenahay caasimadayna aad baad maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu fi amaanillah ونعجز ذو وقتك قاعد سيسي